أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawade kusoo dhawow channelka aqoon official. hadaa channelka cusub tahay subscribe saar, muuqaalkan like garee, asxaabada u share garee. aad waa mahadsantiin. maanta waxaan qaadan doonaa imtixaanka dowladda maadada xisaabta fasalka 8aad. imtixaankan waxaa la galay 2022 waaye. marka waxaan qaadan doonaa maadada xisaabta baartigiisa koowaad ayaan ka bilaabi doonaa. la socod wanaagsan. ardayda 8aadkana si wacan inay uga faa'iideystaan ayaan rajeynayaa sanadkan imtixaanka shahaadiga ah. ugu horeyn halkan waxaa qoraysaa magacan oo afaran, roll numberkaaga dugsiga iyo xarunta aad ku galaysid halkaa ku qoraysaa. marka shuruudahan inaad iska akhrisid waaye. fadlan u akhri tilmaamaha u akhriso marka inta imtixaanka warqad marka lagu soo dhigo inaad akhrisaa. waxaa lagu dhahay qodobka koowaad, ku qor meelaha bannaan magaca oo dhammaystiran, roll numberka dugsiga iyo xarunta. ka jawaab dhammaan su-aashii aan laga jawaabin lama saxayo. marka su-aasha hadaa ka tagtid lama saxayo, marka jawaab ma lihid, marks ma lihid. numberka ku xiga u qor si muuqata, kuna qor qalin leh qad buluug ah. qalinka isticmaalaysid waa inuu yahay mid buluug ah. sidoo kale ku toosnow dhammaan shuruucda imtixaanka iyo waqtiga loo xadiday. sacana marka intaa waa shuruudihii imtixaanka. waxaan fiirinaynaa marka baartiga ugu horeeya imtixaanka 8aad maadada xisaabta ayaan fiirinaynaa. marka maadada xisaabta imtixaanka 8aad baarti 1 wuxuu noo noqon doonaa goobageli ama circle ayaa noo noqon doonaa. marka qaybta koowaad haddii aan fiirino, goobageli jawaabaha saxda ah, midda saxda ah ka dooro. maxaa haysanaa marka ururka soo koobaya dhammaan ku tiirsanayaasha ururada waxaa lagu magacaabaa ba urur guud, ta urur duleed, ta urur maran, xa urur dhextaal ah. marka jawaabta aan ka dooranayno waxay noo noqon doontaa midda saxda ah ee aan dooranayno waa ururka guud. waa marka ururka guud ayaa ka dooranaynaa oo xarafka ba ah. number 2, haddii ururka guud ee ga uu yahay buug, qalin, mastarad, sabuurad, jeesto. ururka ba waa buug, mastarad, jeesto. urur duleedka ba waa marka urur duleedka ba aan la weydiiyey. waxaa haysanaa ba qalin mastarad, ta qalin jeesto, ja qalin buug, xa qalin iyo sabuurad. marka urur duleedka ba waxayna noqonaysaa inta ba loo sheegay maahina inta kale kasoo hartay. ba maxaa lagu sheegay buug, mastarad, jeesto. marka xarafka saxda waxaa noo noqon doonaa xarafka xa oo ah qalin iyo sabuurad ayay noo noqonaysaa. numberka 3aad haddii aan fiirino, tiro walba oo aan ahayn eber muujiyaheeduna yahay eber waxa ay la eg tahay eber, 1 minus 1 2. jawaab saxda aan ka dooranayna maxaa marka waa 1 waay. marka xarafka ta ayay ku xusan tahay oo waa 1. qaybta kale su-aasha ku xigta ee afraad, number 4 aan fiirina. marka number 4 asna waxaan haysanaa raadi mugga 3 jibaarane ku sawiran dhanka midig. raadi mugga 3 jibaaranaha ku sawiran dhanka midig ayaa haysanaa. marka sawirkaan haysanaa oo ujeediin, dhinacan waa 9, dhinacan waa 9, dhinacan waa 9, saddexda dhinac. marka maxay noqonaysaa ba 792 sentimitir 3 jibaaran, ta 27 sentimitir 3 jibaaran, ja 729 sentimitir 3 jibaaran, iyo xa oo aan haysano 792 sentimitir 3 jibaaran. haddaba jawaabta aan ka dooranayno marka waxay noo noqonaysaa xarafka aan ka dooranayno waa xarafka ja 729 sentimitir 3 jibaaran ayaa noo noqonaysaa. saddexdooda baa isku dhufan doonaa 9 iyo 9 iyo 9. numberka 5aad, qormo qoraalka gaaban 6 ku jibaaran 5. tirada 5 waxaa loo yaqaanaa
ba jibaar ta hooseeye ja sal xa muujiye marka xarafka ka dooranayno waa xa muujiye ayaan leenahay muujiye su-aasha lixaad haddii mugga 3 jibaarane uu yahay 125 mitir 3 jibaaran dhinaca 3 jibaaranaha waa maxaa haysanaa 4 6 5 10 ay waxaa haysanaa 3 jibaarka 125 waxay noqonaysaa marka dhinaciiba inuu yahay 5 haddaa 5 lagu dhufto oo 5 lagu dhufto waxay noqonaysaa 125 ay noqonaysaa oo ah mitir 3 jibaaran waxaan fiirinaynaa nambarka ku xiga ee 7 marka aan u qorno 8 waxaan haysanaa 850,000 qormo saynis ahaan waxa ay noqonaysaa ba waxaan haysanaa 8.5 lagu dhuftay 10 ku jibaaran -5 ta 8.5 lagu dhuftay 10 ku jibaaran -5 ja eber dhibic 85 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 6 sidoo kale waxaan haysanaa xarafka ku xiga xa 85 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 3 marka jawaab sax ah aan ka dooranayno waxay noqonaysaa xarafka ta 8.5 ku jibaaran 5 ayay noqonaysaa su-aasha waxaan u gudbaynaa ee ku xigta ee 8aad ayaan u gudbaynaa marka su-aasha 8aad haddii aan fiirino number 8 haddii aan fiirino marka number 8 waxaa haysanaa xilliga sanad dugsiyeedka arday walba waxa uu beeray deegaankiisa hal lagu dhuftay 10 ku jibaaran 4 geed ah haddii 1.5 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 5 ama 5 arday dhigto dugsi tirada geed ay beereen guud ahaan ardayda waa waxay noqonaysaa ba intaas haysanaa ta sidoo kale ja iyo xa jawaabta saxda ah ee aan ka dooranayno wuxuu noo noqon doonaa xarafka aan ka dooran doono waxay noo noqon doontaa 1.5 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 9 xarafka ba ayaan ka dooranaynaa xarafka ba nambarka ku xiga waxaa gudbaynaa 9aad su-aasha 9aad aan fiirinaynaa marka su-aasha 9aad waxaa hayna fududeynta faraqa laba tibxaale qaas ah ee maxaa haysanaa marka waxaa haysanaa x ama xa plus 5 ama 5 oo ku dhacsan xa minus ama laga jaray 5 waa marka intaa isku dhufano waxaa kasoo bixi doona ba ma intaasa ta ma intaa xa iyo ja aan fiirina marka hore xa iyo xa haddii isku dhufano waa xa laba jibaaran waay xa laba jibaaran xa haddaan ku dhufano -5 ne waxay noqon doontaa -5 xa ayay noqon doontaa -5 xa ayay noqon doontaa -5 xa sidoo kale xa 5 ku dhufo x maxay noqon doontaa iyadana +5 xa ayay noqon doontaa sidoo kale -5 iyo +5 haddaan isku dhufanane waa 25 waa marka 25 sidaa darteeda xadan oo 5ta ah iyo xadan oo -5ta ah waa isla bixi doonaan waxaa soo haray xa laba jibaaran -25 jawaabtaasaa soo baxday marka la isku dhufto halkan aan ka raadina marka waxay ku xusan tahay xarafka ba ayay ku xusan tahay xa laba jibaaran -25 su-aasha ku xigta ee 10aad marka la isku daro 5 xa loo qeybay 21 iyo 4 xa oo lagu daro loo qeybay 21 jawaabtu waa ba intaas haysanaa oo ah 9 xa loo qeybay 42 ta waxaa haysanaa 20 xa loo qeybay 21 ja waxaa haysanaa 9 xa loo qeybay 21 xa waxaa haysanaa xa loo qeybay 21 marka sareeyaha waa isku mid hooseeyahan dheh hooseeyaha waa isku mid beeskooda maxaan ka qaadanaynaa beeska marka waxaan ka qaadanaynaa beeskooda marka waxaan ka qaadanaynaa waa isku mid waa 21 ayaan ka qaadanaynaa marka 21 ayaan ka qaadanaynaa
maadaama base-ka uu isku mid yahay. aye hooseeyaha marka oo isku mid ah waxaan ka qaadanaynaa base-kooda 21 iyo 21 waa same waa isku mid 21 aan ka qaadan doonaa marka 21 aye labada sareeyana waa isku dari doonaa waxay noqon doontaa 9 marka 9 waxaa la mid tahay marka 9 waxaa la mid tahay xarafkee ku xusan waxaa ku xusan 21 9 loo qeybiyo 21 xarafka ja ayuu noo noqon doonaa xarafka ja ayaan ka dooranaynaa marka haddii aan fiirino numberka ku xiga 11aad numberka ku xiga 11aad haddii aan fiirino maxaa haysanaa marka loo qoro jibaar ahaan a lagu dhuftay ba lagu dhuftay a lagu dhuftay ba lagu dhuftay a waxay la mid tahay haye meeqa a ayaa haysanaa 2 a 3 a ayaa haysanaa a ku jibaaran waxay noqonaysaa marka a ku jibaaran waxay noqonaysaa 3 ba ku jibaaran 2 xarafka xa ayuu noqon doonaa isna jawaabta. su-aasha ku xigta 12aad marka la isu qeybiyo 18 haddii aan 6 u qeybino maxaa kasoo bixi doona a iyo ba u qeybi a iyo ba oo ku dhacay qaybta koreen maxaa a ba la jawaabta maxay noqonay waxa kasoo hari doona 18 6 u qeybi waa 3 a iyo a isla baxay ba iyo ba isla bixinay la soo hartay marka 3 la ama l. waxaa u gudbaynaa qaybta kale su-aasha 13aad ayaan fiirinaynaa su-aasha 13aad imtixaanka dowladda fasalka 8aad 2022 ayaan xalinaynaa channelka cusub tahay muuqaalkan subscribe saar like saar subscribe saar channelka asxaabadana u share garee. waxaa u gudbaynaa 13 wareega shaxanka layliga ee soo socda waa wareegan oo la diray marka wareega ayaa raadinaynaa maxaa haysanaa waxaa haysanaa dhinacan waa 5x + 3 dhankan waa 2x square sidoo kale kana waa isku mid 2x square qaybtan hoosena waa 5x + 3 wareegana lagu diray marka wareeg oo idil maxay la mid tahay 5x + 3 ku dar 5x + 3 5 iyo 5 isku dar 10x waaye 3 isku dar waa 6 labadana isku dar 4x square jawaabta noqonaysa marka waxay noqonaysaa xarafka ku xiga xarafka b ayay noqonaysaa oo ah 4x square + 10x + 6. numberka ku xiga 14aad raadi bedka saddexagalka hoose adigoo adeegsanaya tibxaha aljabra adoo adeegsanaya waxaa raadaysaa bedka raadi marka bedka marka maxaa la mid yahay labadan isku dhufo maxaa la mid tahay 8 hal 2 u qeyb marka half u qeyb waxay noqonaysaa waa 2 labadan isku dhufo 4 iyo 2 isku dhufo waa 8 half u sii qeybi waa 4 centimeter square ama laba jibaaran. waxaa u gudbaynaa numberka ku xiga numberka ku xiga 15aad number 15 ayaa u gudbaynaa marka numberka 15aad raadi wadarta bedduleedka ee sadjibkaha soo socda adigoo isticmaalaya xeerkana isticmaalaysaa 2 oo ku dhacsan dhirir oo lagu dhuftay balac lagu daray 2 oo ku dhacsan dhirir lagu dhuftay joog lagu daray 2 lagu dhuftay balac lagu dhuftay joog. marka resultiga aan fiirino maxaa haysanaa marka jooga waxaa haysanaa waa 5 balaca waxaa haysanaa 7 dhirirkan waxaa haysanaa 10 ayaa haysanaa marka dhirirkan waxaa haysanaa 10 ayaa haysanaa dhirirka. marka intaan markaas kusoo dhufano qaacidada isticmaalno maxaa kasoo bixi doona resultiga ma baa mataa ma jaa maxaa resultiga marka jawaabta aan ka qaadan doono ee soo bixi doonta waxaana noqon doontaa xarafka ja oo ah 310 centimeter laba jibaaran. su-aasha ku xigta aan gudbaynaa marka 16aad number 16 xisaabi bedduleedka ay leedahay dhuldhubada ku sawiran dhinaca midig
u qaado byna intaa u qaadanaynaa marka joogeeda waa 50 centimeter dhexroorkeedana waa 20 centimeter byna waa haysanaa marka waxaan soo saaraynaa jawaabta oo ah maba 3786 miya ta 3768 miya numberka ku xiga ja 3678 miya sidoo kale xa 3876 miya marka jawaabta saxda aan ka dooranayno waxay noo noqon doontaa xarafka aan ka dooranayno xarafka ta ayaan ka dooranaynaa marka xarafka ta ayaan ka dooranaynaa oo ah 3768 ayaan ka dooranaynaa marka xarafka ta ah jawaabta marka laga shaqeeyo intaas soo baxayso isla su-aashan buugga waxay ku taalaa 8aad ayay ku taalaa waxaa u gudbaynaa numberka ku xiga su-aasha ku xigta 17aad 17 ayaa u gudbaynaa dhinaca maqan saddex xagalka hoose adeegsanaya aragtida Pythagoras waa maxaa haysanaa dhinacan oo 3 dhinacan oo 4 ah maxaa maqan dhinacan maqan halkaasana ay maqan marka saddexdan laba jeer isku dhuf waa 9 saddexdan laba jeer isku dhuf waa 16 isku dar waa 25 taana xidid ka saar waxa soo hari doonto waa 5 xarafka ku xusan ta ay noqon doontaa raadi qiimaha xagasha x degree ama x power degree shaxanka geesoolaha qaabsan ee soo socda maxaa haysanaa sawirkan fiiri kan waa 108 kan waa 108 kan waa 108 kan waa 108 marka dhamaantood waa 108 marka halkaan waxaa ka fahmaynaa inay isla wada eg yihiin ayaa ka fahmaynaa marka xaan muxuu noqon doonaa maadaama kuwa dhan ay isla eg yihiin xaan wuxuu noqon doonaa 108 ayuu noqon doonaa xarafka ku xusan xa numberka ku xiga fogaanta u dhaxaysa laba barood oo ah eber iyo -3 iyo eber iyo 3 waa maxay noqonaysaa marka fogaanta maxaa loo helay waa distance-ga ama fogaanta waxay la mid tahay haye kan oo eberkan ah oo dambe ayaa laga jarayaa eberkan kale maxay noqonaysaa x2 laga jaray x1 waa x2 laga jaray x1 marka eber laga jaray eber waxay noqon doontaa eber leh noqon doontaa oo square ah whole square ah lagu daray haye y-da labaad oo 3 ah laga jaray maadaama minus uu wato asagana wuxuu noqon doonaa plus haye 3 halkaan waxaa kasoo bixi doona laba jibaar saar asne eber iyo eber kala jar waa eber square garee waa eberkii lagu daray haye labadaasna isku dar waa 6 square garee waa 36 iyo eber isku dar 36 waaye 36ne xidid ka saar maxay noqonaysaa marka ama root marka laga saaro waxay noqon doontaa 6 ayay noqon doontaa marka aan ka fiirino jawaabta marka hadaan fiirino waa 5 6 7 8 ayasana laakiin waxaan ka doornaynaa xarafka ta oo 6 ay noqonaysaa waxaa u gudbaynaa numberka ku xiga ee 20aad su-aasha 20aad ayaa u gudbaynaa marka su-aasha 20aad waxaa nala diray wareega guud ee saddexagalka hoose waa wareega guud saddexagalkan haysano waa wareega maxaa asaga dhammaan dhinacyada hays isku soo dar dhinacyada dhamaantood hays isku soo dar marka 3 2 ku dar 5 ku dar 10 marka wareega waxaa noqon doonaa 8 15 17 waa xarafka ja 10 cm waa soo darnay waxaa u gudbaynaa marka intaa waa part 1 oo qaybta circle-ka ahayd waxaa u gudbaynaa marka qaybta kale ee xigta ayaa u gudbaynaa qaybta kale ee xigta ayaan fiirinaynaa oo ah
subek waa isku beeg ama isku aadi saa u taqaanidba ayaan xalinaynaa. isku aadi ama subek ayaan xalinaynaa. qaybta koowaad marka numberkan 21 waxaa ku aadinaynaa qaybta kale labaad. number 1 iyo wax saa in loo sameeyaa ficneed laakiin halkii kasii waday 21 ilaa saas oo waday. marka qaybtan su-aasha koowaad 21aad waxaa ku qoran 6 8 10 12 14 iyay ku aadaysaa marka. hadda halkaan fiirina 45 degree barbartameed inta maxay noqon doontaa waxay ku aadi doontaa numberkan ku aadi doontaa x oo waa tiro dhaban 4 waxay ka yartahay xa waxay ka sii yartahay 16. halkaan marka waxaa ku qoraynaa 21 ayaa ku qoran halkaa. numberka ku xiga ee labaad 22 wuxuu ku aadi doonaa 4 waxaa haysanaa 8 lagu dhufto 8 lagu dhufto 8 lagu dhufto 8 iyo ku aadi doonaa marka wuxuu ku aadi doonaa 8 oo ku jibaaran 4 8 oo ku jibaaran 4 ayuu ku aadi doonaa. halkan waxaa dhihi doonaa 22 ayaa dhihi doonaa. numberka ku xiga saddexaad 23 512 markii cube laga saaro waxaa noqon doonaa ayuu ku aadi doonaa 8 ayay noqon doontaa. marka 8 isku dhufo waa 512 ayay noqon doontaa. marka halkan waxaa dhihi doonaa 23 ayaa dhihi doonaa. 21 22 23 saas isugu xigaan 21 22 23 qaabkaas ayay isugu xigaan. marka si fiican u qorno si loo fahmo 23 numberka ku xiga ee 24aad inta marka isu qaybino maxaa ka soo haray 800 ka soo harayso 800 ka soo harayso maxaa noqonaa marka 8 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 24 kan u dambeeya ayuu ku aaday 24 24 saas ay isugu xigsadeen. yaa ugu xiga 25 ku xigto 25 maxaa haysanaa xa loo qeyb 7 lagu daray 4 xa loo qeyb 7 marka sareeyaha waa isku mid isku dar 5 xa hooseeyana halka soo qaado 5 xa loo qeyb 7 aawe numberkee waaye 25 waaye 25 halkaan iskale marka 25 halkaan iskale 25. numberka ku xiga 26aad laba hadii lagu dhufto laba xa maxay noqonaysaa laba xa laba jibaaran ay noqon doontaa 26 ilaa 25 way isku xigsadeen marka 26 waa isku xigsadeen. numberka ku xiga 27aad waxaa haysanaa xa lagu daray y waxay la mid tahay 12 xa laga jaray y waxay la mid tahay 4 maxaa dheenaasne isla egtooda jirta ama isla egii wada jira ayaa dheenaa numberka 27 ayaa siinaynaa asne 27. waxaa ku xijinaynaa numberka 27 waa haysanaa waxaa noo dhiman numberka 28 afar xa ba haddii u qeybino 2 ba maxaa soo haray ba iyo ba waa isla baxeen 4 lagu qeybi 2 xa waxaa noqon doonaa numberkaasna wuxuu noqon doonaa asagana numberkaas wuxuu noqon doonaa numberka haysano wuxuu noqon doonaa waa 28 halkaan ku aadi doonaa 28 wuxuu ku aadi doonaa halkaan 28 si fiican u qoro 28 numberka ku xiga 29 maxaa dheynaa xagal dibadeedka 8 geesole ama geesole qaabsan waa 29 wuxuu ku aadi doonaa numberka u koreeya 45 ayuu ku aadi doonaa 29 kaas ayuu ku aadi doonaa 29 numberka u koreeya 45 degree waxaa ku aaday 29 degree numberka 29. numberka u dambeeya bardhaca bartamaha xariijin waxaa loo yaqaanaa barbartameed waa 30 asagana waa 30 ayuu noqon doonaa 30 ayuu noqon doonaa. marka maxaa noo dhiman waxay isugu aadeen numberka koowaad 29
soddon labaatan iyo shan labaatan iyo lix labaatan iyo toddobo labaatan iyo sideed labaatan iyo kow soddon labaatan iyo labo labaatan iyo saddex labaatan iyo afar qaabkaas ayuu isugu aaday waa part 1 intaas aan kusoo gabagabeynaya waxaa xasuusin mudan haddii channelka cusub tahay subscribe saar muuqaalkan like gare si asxaab badan u gaaro aad waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.